بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن أو وناكسن ميل كستو آد نغا داوانيسان ومدى الصومالية هل كان وسموذا ميديا برتا يوتيوب كان كلين هاي براها بالشدة ميل كستو آد جوكتان با كلنتي وعن أو وناكسن ومركلة مدال كلا يموقال كلا سموذا ميديا يا نغلا سعوتان هدي إيبو إدمو مقع يقونه وعلي عبد علمي soo dhawaada marka ugu horeyso waxaan rabaa maanta inaan ka hadalno hadduu ilaahay yiraaho cudurka coronavirus la yiraahdo ama ay u yaqaanaan hadda loo bixiyayba COVID-19 saameyn intee la eg buu ku yeeshay caalamka hadday ahaan lahayd dhanka dhaqaalaha hadday ahaan lahayd dhanka waxbarashada hadday ahaan lahayd dhanka isu socodka caalamka iyo caalamka safaradii kala aadi jiray hadday ahaan lahayd isdhexgalkii bulshada iyo meelaha lasugu imaan jiray shaqadii iyo wixii la midka ah arrimahaas ayaan inta badan falanqeyn doonaa iyo waxyaabaha ay ka dhaheen hay-adaha caafimaadka adduunka ugu horeyso WHO hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan caalamka caafimaadka ee markii magaceeda lasoo gaabay loo yaqaano WHO dowladaha reer Yurub say ula tacaaleen China xaalkiisa waa sidee Mareykanka maxaa uu ka yiri Canada iyo Latin America caalamka dhan waa uu ku faafay cudurkani marka ugu horeyso walaalayaal cudurkani waa cudur khatar ah oo kamid ah cudurrada faafo hay'adda WHO aan ku hormarno warbixin ay soo saartay shir jaraa'id oo Geneva ay ku qabteen waxa ay sheegeen in cudurkani uu yahay cudur heer caalami ah oo epidemic disease bay dhaheen waa cudur aan waxba laga qaban karin oo daawona lahayn ilaa iyo aminka hayeeshee waxay sheegeen in ay la tacaalayaan weli oo adduunku ay kala tashanayaan dhaqaalana ay doonayaan inay ku bixiyaan si dadku ay uga hortagaan amaba loogu gado waxyaaba muhiim ah sida gloveskaas gacmaha haddaan ku qabo kale bahalka maska la yiraahdo afka lagu xirto disinfectionka waxyaabaha daawada lagu dhaqo gacmaha lagu nadiifiyo iyo saabuuno iyo wixii la mid ah walaalayaal horta marka ugu horeyso cudurkan xaqiiqatan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yiri anagu dad muslim aan nahay wax kastoo ilaahay noo keenayna waan aaminsannahay xadiith baa ahaa kullu umuurun muslim lahaa bikhayr faida asaabatun musiibatun fasabara faida asaabatun bikhayr fashakara xadiith baa sidaas ahaa marka qofka muslimka ah wax kastoo u imaado khayr buu u arkaa haddii shar ay u imaado wuu samrayaa haddii khayr uu imaadane haddii wuu shukrinayaa marka amuurta qofka muslimka ah sidiisaba khayr ayuu isaga shukrinayaa markaste aayadda qur-aankana waa tii ahayd maa asaabakum min musiibatin fa bimaa kasabat aydiikum musiibo ma dhacdo ilaa haddii ay dhacdo waa waxaad gacmihiina ku kasbateen taas marka waxay muujinaysaa in allah subxaanahu wa tacaala ummaddiisa asaga uusan dulminin ee ummaddu ay qooqeen ay kibreen markay kibreen kadibna cudurro lagu buris celiyo kibirkooda in allah subxaanahu wa tacaala uu keeno marka cudurkani waa cudur noociisa aan weli la arag waxyaabaha uu ku faafo runtii sida lagu kala qaado waa cudurka waxaa lagu kala qaadaa breathingka macnaha neefsashada waa breathing disease cudurrada neefta lagu kala qaado way asliyan sida takhaatiirta ay sheegeenna waxaa ka mid ah waxyaabaha lagu kala qaado taabashada oo kale xaakada oo kale hindhisada qofku ugu hindhisay oo kale qofkii od salaanto oo kale iyo wixii la mid ah waxyaabahaasna in lagu kala qaado ayay u badan tahay meelaha haddaba laga kala qaado inta badan waxaa ka mid a meelaha laga kala qaado meelaha populationka dadka isugu imaadaan sida iskuullada magaalooyinka waaweyn ee dadku ay ku badan yihiin goobaha tareenada laga raaco meelaha dadka ay isugu imaadaan sida maqaaxiyaalka iyo goobaha raashinka laga cuno isbitaalada adigu waa iska garanaysaa inta la isugu imaado o dhan meelahaasaa ka mid a meelaha inta badan laga qaado haddaba sidee looga hortegi karaa laba xaalaan u kala qaadi lahaa dadka muslimka ah waxay uga hortegi karaan wixii muslim ah in ilaahay ay baryaan ay ducaystaan ilaahay ay tala saartaan oo ilaahay ay cudurkan ka magan galaan inuu ku dhicin ducooyinka loogu talagalan ay akhristaan midda kale dadka islaamka waxaad ogsoontihiin walaalayaal inay yihiin dad ilaahay diintani waa diin nadaafa النظافة ويدينتنا ودين نصيحة
waa diin nadaafadeed. waxaad ogaanaysaa waxay leeyihiin hadda dhakhaatiirta caalamka iyo adduunka wacyigelin waxay samaynayaan, waxay leeyihin gacmaha la iska dhaqo, ha la cadaydo, 5 daqiiqaba gacmaha hala dhaqo, disinfection ha lagu shubo. annaga allah subxaana wa tacaala 1400 iyo ka hor sano yaa ilaahay noo soo dejiyey qaabkaan isu nadiifin lahayn. diinteenna waa diin nadaafa, waa diin nasteexa, waa diin ayada dhanba ka samaysanba amni iyo nabadgelyo. waxaad ogsoontihiin qofka islaamka ah maalintii markuu ugu yaryahay haddii wuxuu tukadaa salaadaha waajibka 5 jeer. 5 jeer qofku wuu weysaystaa. weysada shuruud bay leedahay, iska weysaysa maahan. waxaa ka horeeya qofka inuu yahay daahir. marka ugu horeyso qofka jirkiisa iyo dharkiisa waa inuu daahir yahay oo nadiif u yahay. oo awalan weysada lagama aqbalaya adoon jirkaadiba nadiif ahaynba. marka ugu horeyso saxaradii qofku inuu si fiican isaga nadiifiyo, isaga dhaqo, biyo ku dhaqaa qofka muslimka ah, gacmuhu hortu dhaqdaa, saxaradii buu iska nadiifiyaa, wuu qubaystaa, wuu cadaydaa, cidiyuhu iska jaraa, wuxuu sameeyaa allah mustacaan meelihii kale oo loogu talagalay oo timaha anyway kaaga yaalaan buu iska nadiifiyaa, shaarubadii buu qofku iska xiiraa. waxyaabaha nadaafadaasoo dhan markuu qofka soo maro weysaduu bilaabaa. weysada shuruudaha ayay leedahay iyaduna loo bilaabo. shuruudaheeda waxaa ka mid a 1 sandaarsi, in sanka biyaha sidaa lagu la dhaho oo sanka waxyaabaha kaaga jiro wasaqda laga soo saaro, afka la luqluqdo, gacmaha la dhaqo, wejiga la dhaqdo, suxullada la dhaqo ilaa mirfiqayn laga gaaro, ilaa halkaa laga gaaro la dhaqdo, lugahana la dhaqo ilaa iyo anqawga korkiisa la dhaqo. marka qofka muslimka waxaad ogaanaysaa in uu nadaafadba isaga jiraba. marka ilaahay subxaana wa tacala waxaad ku ogaan lahayd waxaani aaya weye, waa aayatu min aayaatillaahi weye, waa waxyaabo ilaahay maaragtay noogu talagalay ama adduunkan ugu talagalay maaragtay inuu wax ku tusiyo. tillaabooyinka islaamka uu qaadi jiray bay hadda qaadayaan oo dadku wacyigelinayaan, oo leeyihiin hala weysaysto, gacmaha la iska dhaqo, hala sandaarsado. waxaa weeye hataa anshaxa diinteena islaamka anshaxay ogashahayo bas aad noogu waanisay. qof markuu hindhisayo waad aragtay in qofka uu hindhiso, oo markuu hindhisayo kale waxay dhahay iyagu gacanta saasa dhaho. haddii caadiyanna wayba iska tahaabo nadaafadda iyo waxaa naqaanayba iska qofku hindhisayo kale inuu wejigiisa dhinac u babco oo sida uu ku hindhiso haddii bulsho ay meesha joogto ay ku badan yihiin, ama xataa gacmihiisa saas uu dhaho. marka waa nooc min anadaafa, waa qayb nadaafada ka mid ah. marka arrimahaasoo dhan marka waxay noqonayaan arrimo dadka islaamka u fududaynayo in cudurkani ay ka digtoonaadaan, amaba ay u yihiin kaalmo dhanka nadaafadoodii iyo weysadoodii iyo salaadoodii ilaahay ay baryayeen ayay u tahay. taas waa taas. tan kale ilaa iyo aminka cudurkani ma jiro waxa vaccination la yiraahdo oo daawo ah ma jiro, ama tallaal ah oo la soo saaray ma jiro. laakiin waxay dhaheen laga hortago galofiskan gacmaha hala gashado, sanka hala xirto,